waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Port Dickson ee dalka Malaysia kulan u socday muddo 5 maalmood ah ku dhawaad 300 oo dhalinyaro ah kana kala yimid 50 dawladood. kulankan waxaa soo qaban qaabiyeen hay'adda kulminta dhalinyarada ee marka magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaan WAMI. hay-adan WAMI ee xarunteedu tahay magaalada Riyadh ee boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya. Ismaatinka sanadkan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay noociisa ah oo la isugu keeno dhalinyaro ka timid dawlado kala duwan. dhalinta kulankan lagu casumay waxa ku jiray dhalinyaro Soomaaliya iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay dawladaha Islaamka. dhalintan qaarkood oo TV-ga Royal ay la kulantay ayaa yiri barnaamijkan waa barnaamij ay qabatay hay'adda WAMI marka dhalinyarada caalamka kala joogto dhamaantood u qabatay ilaa 50 taqriiban wadan oo kala duwan baa ka soo qayb gashay. waa barnaamij faa'iido badan leh oo waxyaabo badan lagu bartay barnaamijyada thaqaafiyeed iyo waxyaabo badan lagu bartay marka barnaamij aad u qiimo badan buu wax badan laga faa'iiday. waxaan qiyaasayaa marka maxay horta barnaamijka waxa barnaamijka qabtay WAMI ama nadwadu ay u qabatay maxay dhalinyaro ka kala timid maxay caalamka islaami daafiisa kala duwan macna marka maxay ay dad maxay dalal badan oo kala duwan ay isku yimaadaan macna waxaan qiyaasayaa inuu qof walba garanay maxay waxyaabo badan yani khibrad iyo experience badan la kala soo la kala faa'iideysanayo marka insha Allah waxyaabo badan ma ka faa'iideyna barnaamijka say walaalaha sheegeen waxaan ka soo qayb galnay barnaamijka nadwada ay qabatay ku saabsanaa ciwaanka guud lahaa namaa wacyi khaasatan barnaamij fara badan baa ka baxday anaga waxaan ka helay barnaamijta ay ka mid yihiin tadriibaadka u kala qaybsamayay kuwa Saudi iyo Suuraba leh iyo kuwa action ah ama amaliyan loo qabto sida musaabaqaadka dabaasho kaleeto kuwa musaabaqaadka quraanka oo kaleeto kaas oo dhan baan ka helay alxamdulillah waxaan uga kordhay marka cilmi aad u fara badan oo aqli leh thaqaafa leh fiqi leh ahkaan leh wax kastaba leh waxaan ka baxaynaa insha Allah taala anagoo wadano zaad aad u weyn oo islaanahay anigana wax noo taraya ummadan na sugaysana wax badan u taraya. barnaamijkan sida walaalaha ka dhawaajiyeen waa barnaamij oo loogu magac daray nadwada qabatay namaa wacyi waxaan u maleynayaa inaan ka wada faa'iideysanay dhamaanteena faqradkiisa kala duwan tafsiirka fikirka wacyiga tarbiyada siyaasadda sharciga inta badan ka wada faa'iideysanay waxa uu si muhiimsan wujuh kala duwan iyo dawlado kala duwan meesha saaxiibo lagu yeeshay la bartay iyo laga fikiray yidadiilka mustaqbalka ummadda muslimiinta meel walba joogaan maasantiin xaqiiqatan nadwadan wax badan ka faa'iideysanay qofka naftidiisa horumar u gaar lahay iyo ummadda horumar loo gaarsiin lahay iyo nimankan oo wadamada kale oo horumarka gaar Mareykanka iyo Yurubka amal fikirkooda iyo u fikraayeen iyo istaraatiijiyada khudadka iyo waxay soo bilahay ka baranay insha Allah tatbiiqi hadda aadman. kulankan ayaa intii uu socday waxaa lagu baranayay sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta dhalinyarada Islaamka iyo sidii looga bixi lahaa xaaladda cakiran ee dalalka Islaamka ay ku jiraan. gabagabadii shirka ayaa la guddoonsiiyay shahaado sharaf dadkii ka soo qayb galay shirka iyadoo abaalmarin gaar ah la siiyay Ismaaciil Mahdi Abubakar oo ah maamulaha TV-ga Royal ee bariga dhexe Afrika iyo Asia. hay'adda ayaa ugu dambeyntii sheegtay in sanad walba ay qaban doonto kulamo noocan ah. kulankan oo muddo 5 maalmood socday ayaa lagu soo gabagabeeyay hotelkan Salasa Beach Resort ee ku yaala Port Dickson oo 120 kilomitir u jirta caasimadda dalka Malaysia ee Kuala Lumpur. Ibrahim Daoud, Royal TV, Port Dickson.